halkani waa RTN. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال كسو دوادا برنامجكي إجلان شو أو طبعا حبين كانوا كلا يحلقن يطيم كان أنه هو ذا ستوس وقود الصعون. برنامجه كلا قيمة بدن حلية قارنا كلا وناكسن فنانين تاعن إسلام هاي مركز دتك ويتشعلين أم ويتبيان ويكلا قيمة بديهين. إن تطبعت كان هذا برنامجك وحا إيجو مرتيا حاوكين بهالكن يفرد إيجو مرتيا حاوكي سدو. وادوها إجلان. Thank you. واتي أد بانقو فرحسنا إن نعاو هالكن برامجك إجلان شو إنه عاو هالكن وضع فردينو. برامجك إنتنا سيجلين تذكر إن بدن بحاوكين كوت برضو مقعاقو صدحان. أنت دقنا يسي أما أنت مركز ربط إنك في مقعيقة حاوكين الله وانا نيستي ذكين لكن حاو أحمد الأولى ليدها أنا. ما شاء الله أدو مهاتسنتاي وحلقة يا بدو بدنا كويقان قارب ديس نصيب ويا شعاو برامجك إجلان شو إني صوفر يستانو داوضانا أو سؤال بدن اسويدينينا طبعا هالكن أي كفائدة سندونان مركله waxaan ku leeyahay ku soo dhawow dabcan markii kuugu horeysay ee Kenya aad timaadidii aad iyo aad markii ugu horeysay waa aad ugu faraxsanahay inaan imaado oo waliba aan kala kulmo aan meel anagoo wada joognaan arko aad ugu faraxsanahay dhammaan baahda TV-ga RTN waa because barnaamijyadiina waliba gaar ahaan barnaamijkaaga Iglan Show the best ma laga sheekeyn karo marka waa ku mahadsantiin sida weyn ay fanaaniinta u soo dhaweysiin aad ugu heelantahay waliba gaar ahaan adiga Iglan ah حاوي ما شاء الله حاوي كيني أدبا وما تصنتها فنانين تبرامج كان يتيفي جنبه وحلا وقول تلاقي بالله فريبا برامج كان لوس كان يبقى إني كبعيان فنكا أو مركز فنان كستوي ما ضيع عيد كستبع أنه هالكن أنه صوفر السنة شعب كيس أي مركز أركانه استعوضان إن كل سفر بعد نوقتمي UK بعد نوقتمي طبعا كي مركاتي محاكو جهرية وأدركته كوجيا بدنا كي مركا إمادو حي جهرية أن أركي أما يجهر إمادة أديك إهدار تقف جهرية أركي يا دلنيرة بدنو مركز برنامج نو ديارنا وعبد الحكيم كمدي هاي وفؤاد كمدي هاي دلنيرة بدنو فنانين أي كمدي هاي كاميرستيال أي كمديين marka dad badan oo waxa iga hor imaaday aan aad u jeclaystay sida liibaan jigjigo kale dad qaaliladan oo kale dad asxaab markaas aan dhaga qad kale iskala hadli jirnay oo markii dambe aan live isku aragnay aad ay ugu farxad badneed ma macnaha dadkaas way ku soo dhaweeyeen oo asxaabtii ku soo dhaweysay dabcan aad bay ugu mahadsanyiin laakiin Kenya ku markaa timi maxaad aragtay oo yani wax indhahaagu qabtin maadaama markii ku goorisay ay Kenya horta waxyaabo badan aan ku arkay Kenya waa dhul oo markaas Afrika waa horta Afrika mar walba haddana gaar ahaan Kenya waxa waaye Soomaali badan ay leedahay ganacsiga ka socdo macnaha wax ku cajay waa tahay aad u mahadsantahay xawaan laga waxaad dhigi kartaa waa meel Soomaali u badan tahay markaas ganacsigooda ka socdo aad ii soo jiitaan waa sax aad u mahadsantahay waa tahay horta intaynaan bahadalka sii gelin caaw ma rabo su'aalo badan inaan halkan aan ku weydiiyo sax waxa kaliya aan caaw halkan ku soo fadhiisiyay ama aan ku keenay ama barnaamijka Iglan Show aan kugu casmay waa inaad shacabkaaga iyo heesahaaga macmacaana aad ku qancisid hadal marka looma babaahna su'aaluhuna waa iska kooban yihiin sax bal marka ugu horeysa heesta aan barnaamijka rabo inaan inagu daafuro waxa la yiraahdaa xogogaal sax ayaa la yiraahdaa xogogaal ayaa la yiraahdaa waa hees gabar hore ay u soo qaaday Djibouti fanaanad weyn markaana waa heesaha aan aad u jecelahay inkastoo markii dambe aan maqlay inay gabar Djibouti leedahay markii hore ogeyn oo abwaankiisii oo igu qalday macnaha isna uu ku siiyay idana uu siiyay ma siinina waaba hees jirtay laakiin anna hadda waxaan cadeynaa in hees jirta tahay okay heesta marka xogogaal waa tahay heestaas xogogaal aynu barnaamijka dabcan ku daahfuranayno iyo xaawakeen daawasho wanaagsan
واتهاي aad u mahadsan tahay hees yaro de heesaha qaar baa way markaan dhageysto ama aan deeba sidaan oo kale fanaan iisoo live iigu soo fadhiisto oo halkan aan ku soo casumo qaar baaba i qaboojiyaba صح hadda waynu qabownayba يعني xilligii iyo markaad heesta aad dib ugu noqotid aday laftarkaagu mikrofoonka tuuri gaadhayba عادي ما xilligii xagaagii waxaan xagaagii saddexaad macnaha waxay heestan ka turjumaysaa qof wax badan isla soo socoteen oo waqti badan inta isla socoteen markii aad isla haydeen ba adduunyadii hadda isku timi يا ما حقيقي حقاق بحل وين بين الساعة حد بحال كسيدو يا حقوقال أسوديب اوكي حيسيه دحديني حبيقي كالقعر كحلقي مركز تاحو دامنتي معنا حلقة حقا حلقو كاحق وليقا حسوسنو ورا لما دي وحكا الواقع وضا هدلي كرنا لكن تاسك ما هدلي كرنا waatay aad u maadsantahay dabcan heesaha horta waxay u wada badan yihiin heesa yar oo wada qabo oo jawi degan صح oo wada kuula adiga dhinaca rabshada bay isma aragtiin iyo rabashkan dadka duufay mar dhaweedan soo galay balaayas iga raacday maxaa rabashka soo gashay rabshada dhinaca rabshada ma aqooni jir markii hore kuula iska xaalad oo kabi iska han jirtay marka maalin dhaweedo bari dhaweeda un wax igu soo riixeen hadee waa isayna wili marka rabashkii waxa saam ka soo saartay rabashkii wilina wax cusubna waa soo socdaan hada studio nooga jira wad ogtahay heesaa dambe cusub qaarna waad aragtayba sida jawi oo kale sida heesta la taraarax oo kale wax marka macnaha markay burro kale hada aad dhageysan doonaa haduu ilaahay yiraahdo marka macnaha markay halkaas marayso waa afkaaga ku ciilbax wax la lama harabo marka dadkan heesnaya wax ramay xaga iigu ku ashaadanaya anaga inoo soo dhiibanaya anaga qaadanayna waatay aad u mahadsan tahay dabcan heestaas aad bay macaaneed xaaway waxa jirta markii aan iri barnaamijka waxa ku martiya oo aan page soo dhigay oo aan iri gabadhaas martii igu dad badan baa su'aalo isweydiiyay ay leeyihiin su'aalo fara badan inama jirta waxa aad ogtahay oo lagu xamin jiray oo xana ma taqaanaa oo ogtahay oo aniga lagu xamin jiray إلا صبتها مركب صار دقيقة إسلام مركبة بقول واحد صار دقيقة مسج والله إقلاني هارتن حالي رفول حنتي سمموج لكن أنا هذا فل مئه وارن لكن حنتي وأوجا مركب حاد عيوضات كم بدن إيه كهالله أرنتن إن هارت حبريد لو يدلو حمن جري أون مقلي ولي بجبر ولا شيء حتى لو قد عرتيو يدو تاجن وتيجي لدلتين ليري إن أنتن meel la iiga soo qaado hadalkaas ma ogi horta iglanay laakiin xawakin lug bay la adaha la yiri gabadhu waa cuuriyaan socoto cagale oo cagla waa cuuriyaan xawakin maskiin dad waxay leeyihiin allah gabadhan waa cuuriyaan ba ma isfank xataa isaga fariisato waa calaamad waxa ku raac ay marka waxaan tagay 2006 waxaan tagay Muqdisho دحنتاسنا وقام وقتها أول شيء سوق أرتاح وكين لقطة أكاكو أن قارو حلي قاريا لقدوم عاقا لوقلي مرة دقائق ما أركن ميا مركي هيسيسو ويسكت تاجنتا أو فيرسو وحكا دعايو ويا أنا دتك وح إسكاه استاجس إسكاه روحه هذا بريد بيد صعد بانقل مركي لي لقطة جو أنت وقت مركا ساكن بس حريبة بسم الله ها ده دقائق يردتك marka yar dhaqaaqna waa laga sii daro lugu caag baa ugu jirta la yiri marka hor la faa'iido ay hadda markaan meeshii tagay waxaan iri anigu xantaas oo Muqdisho tagay habeenkii aan markaas barnaamijka aan lahaa aan sameynayay ayaa waxaan horta ugu talagalay horta dadkii markaas oo showgi ciidi oo ka soo qayb galay inaan horta lugaha aan dhaho bismillaahir rahmaanir rahiim heer Muqdisho macnaha bikare microphone baad qaadatay horta markaas aad tiri maxay haytay bismillaah maxaa maqli jirteena markaas dhahan shib war waxa waa is ogaa ana xanteeda waa ogahay ma fahamtay marka maxaa maqli jirteen marka hoos lay wada fiiriyaan shacabki maxaa hoos laga dayaa waa ogahay aniga lugaha hadda waxay ka yaabeen gabadhan isa soo cadaysay halka soo istaagtay lugaha marka waxay la yaaban ayaga wiliga wax wixii la sheegan oo sidee wax uun arkay isdhahay maqt xawakiin waaba u soo diyaar garoodaba waaba diyaar waayba inay wixii banaanka keenta lugihii iyo wixii haba iska yaryaraadaan iyo kuwa lagu socdaaba kuwaas waa ku jira meesha
ما فهمت مال وإجي ودقاجيان أدونك وقبصة الحمد لله لقيك وقبا أنت أو حماتة يو هذا لذحن وضعنا كتناسل ولالك أو عافمات قبو هبا بين هذين قد يلوجي لا ده يلوجي كجرن تاس إلها باشق كله قفل بن إلها الله وحس أقرأ قفك إلهي أقرأ عريانك وعقل مواي عنك وحلو يري كوا عرر يلا إنه يكون مقاطن هرا لو يري أبوانا كتير أبوان لجن كين وينان وكوه السي حسن على سمتر مركا إلهي وحبه مواي قفل بعريان يكن عجها لبا أنا كان الحمد لله هذا إلهي الحديث الحد وإذا ما يستروان كم مهدي إلهي كم مهدي يقولني marka reer muqdisho maalinta saas barana lugay waa kuwaasan iro haba yar yaraadana waa ku socdaha iraan wax aan ciyaarayn ma jirtay hay waa dhamaatay bar ma haray aad ba uma hadsantay aniga laftarkeygu dad badan baa markaan de barnaamijkii aan page-ki soo dhignay leeyahay maanta inanti xaawo ayaa meesha marti ku ah magaalada waa quusatay allah sidaas un baa leeyahay inantii curyaani ma ka deysiinba ma ka deysiin maxaa soo fadhiisay ma waalan tahay markaas waxaan halkan bay ka sheegi doontaa ilaa anigu waa ogahay moogtahay waa tay aad ba u mahadsan tahay dabcan caawa farxad bay ii tahay inaad taageerayaal aad u fara badan aad leedahay oo barnaamijka ay caawa halkan ay naga daawan doonaan in badan la sugayay maasha Allah waa faaniskeygi dhamaan ummadda Soomaaliyeed baa salaamaya waan ku mahadsan yihiin waxaan rabaa inaan barnaamijka hore ugu soo socono bal heesta ku xigta ayaan rabaa inaan soo qabto طبعا عاو برنامج كان هيستا لبعض إلا هيسها وافر بدينهين هيستا قلبس بالي هذا صح قلبس وحا إسكالا أبوان براروتشي مرها دحين كان وحا إسكالا أبوان دافيدو أو تقانان ميوزيك وحا إسكالا أريدو أنا كان أقول قينيا marka heestan galbis farsamada iskale Mustafa Karama wiilkayga eedina waxa waa salaamaya isagana habaryartiisna ahay wax ka saade waa tahay hadalba ma jiray heestaasaan rabnaa inaan iminkana galbis iyo mar kale xaawada u soo wanaagsan heestan ayaa laga carooday rag waxa waaye kuwa guureeyo ay garbaash u tahay kuwa halkay ku gudayaan kuwa guureey habeenka saqda dhex socdo maaragtay halkay u socdaan maalinta cad aan bala arag macnaha kuwa istaba marka badan ay waxaan ku yiri luqiyada luqoonka badan leh iga ilaali bal way heesta hadii intayna fasaxin waanigi fasaxay laakiin waa ka yara joojinay bal heesta waxaan rabaa erey inaad iga yar qaadi inta karbaashka ereyada waxa waaye gurigeyga kama baxo gacan saarna lama heli ragga goorxan socodka god curdaalaha baaso oo habeenka guureey calaashan iga dheh marka inta kalena halkaas aan ku dhameystirayna daawasho wanaagsan
waa tahay halka kaga soo noqonay waxaan ku yiri haduuba geesi yahay gacalba muxuu ku falay damiyaan isagu iska iman karin kala goosahay adiga leeyahay mid kale qalbisiyo moogtahay dad miyir qaba oo maskaxdoodii ay taagan tahay oo maskaxda Ilaahay siiyay waxaan ku miyir qabo ugu jooga ayaa wuxuu xasuustaa qalbisiyo guriye la isku arooso iyo adduunyo iyo hadaba waxaan ku qofkiiba maqan yahay muxuu ka xasuusan xawaay kuwa xageeda looga helayaa qof maqan calaashan aab u soo jeeday ma ka wadaa ma macnaha iminka inaan oo kala inaan iska jecel ba ama gabar ba ninba ku dakhran ba oo miyir laaba ma galbisiyo reer iyo xasuuso reerkayagii bana reerkii ma ba reerkii ana ka nool eestan waxay taagantahay ana ka nool leedahay oo cid iyo family ba iga madambeeyay wax weyn hadiiba aad maqan tahayba reer ba waxa leedahay reerkii nima anaaba nool ba
maya waxay leedahay heestan waxay ka hadlaysaa haddii aniga inaan gooni kula noqdo calaashan waxaa laga hadlayaa ma haddaad jeclaatid ka waran gabdhaha iyo wiilasha taa ku fahmay waxaan kula qof miir qaba oo caadi iska ah oo normal dad gabar miir qabta waa tan hadlaysa ka waran dadka waalan tan waalan iyada u taala marka ilaahay ha soo caafiyo aad maadsantahay gabar miir qabta hadlaysa dadka miirka qaba gabar miir qabta gurigooda iska joogta hadlaysa hadlaysa oo dhaqankeeda ilaalinaysa Soomaaliya tii dakhrantay waa bas weeye waa iska soo dakhrantay socotay waa taas wax kale kala hadli karnaa waa tahay aad baa u mahadsantahay dabcan barnaamijkii iyo heesi waa iyo su'aalaha waan isku dhaxoodina bal waxaan jecelahay inaan dib ugu noqdo taariikhdaada bal in yar taariikhdaada oo aad kooban xilligii aad fanka soo gashay inkasta oo aad marar badan soo sheegtay haddana dad badan baa ina daawanayaan jeclaan lahaa inay ka faa'iidaystaan horta fanka aniga waa horena u soo sheegay waa runta gudaha waxaan u soo galay oo si rasmi ah u bilaabay 2006 si toos u galay intii ka horeysana fanka waan ku jiray oo fanaaniin waaweyn la joogay sida Kooshin sida abwaankeyga kale dad badan oo fanka maanta ku xasuusta Shamuuri oo kale Kooshin yar oo kale Cabdirasaaq baadlo kale inta dad badan oo markaas magaalada aan deganaa oo fanaaniin ah oo ku dhex jiri jiray oo asxaab aan ahayn aan u tagi jiray ama aan markaas iska laakiin si toos waxaan u galay aniga 2006 baad si toos u gashay markaas abwaankeyga Cabdullaahi Gurey igu yiri waa inaad fanaanad marka heestii ugu horeysay aad xaaway masrax la soo taagtid ee aad la soo shirtagtay oo nala hortimaadid ma xasuusataa habeenkaas waa xasuusta waxay ahayd 2006 bishii 12 soddonkeedii ee wow hay waa habeenkii aad baan kurbada iskeentay iskeeno oo hees aan leeyahay marka heestii ma xasuusataa hees aan leeyahay waliba masrax la soo istaagay oo hees koobi xataa ahayn oo markaas la live music la igu qaraacayo oo kamid aha Dayax Axmed Roobla Dayax iyo waxaan ku iri Cabdul Naasir Qorqore sidoo kale waxa gacantiisa ku tumaayay Axmed Yare Aamin Masuhli wiilkeeda isku kooxa in riyaaq baan la dhijir kooxdaas markaas aan ku biiray oo jirtay oo abwaankeyga oo gudoomiye ka ahaa Cabdullaahi Gurey waa la badnaa gabdhaha marka heestii waxa ay sheegtaa heestii ma xasuus bal heestii waxa rabaa ereyada inaad inagu qaadid ilaa maskaxdaada ku jirta heesaygu ugu weyn waa qorada heesahayga qasdiyaal lahaa waxay u dhacaysaa quruxay indhahadayan jacayl runa u qaadayoon u qashuucay baa tahay u qashuucay baa tahay qalbigana kalgacalan la qayaasin karin buu qaadirkuugu beero haddii aanan qoysnimo kula gelin qumahatina qanci maayo abidkay qanci maayo weligay heesas qasdiyaal lahaa waa heestayga heesta ugu horeysay ee abwaan ku sameeyay markii dambena de waabatay talaabsatay oo dhaqaaqday oo dhoof jacayl oo aanoo ku raba hayga roorin oo erla qusatay maydaba maydaba la qabtay waxa kii maalintaas kadib heesahaas dabcan waa heesihii aad ka ugu soo shaax baxday marka fanka dib ugu noqdo heesaas anoo leh Ingiriiska yimid oo diyaarsan oo heesaygii wato oo macallimiinteedii asxaabteeda saxardiid oo kale intoodii labada heesood dhoof jacayl iyo maxay dib ugu yara noqon kartaa taariikhdoodii heesaas dhoof jacayl markaa inta imaaday ayaa waxaa ii dhiibtay gabar abwaanad ah oo hibaaq la dhahayo heesaas marka 2011 kan la ii dhiibay waxaa garaacay Cabdixakiin Farayare mirahana gabadhaas iskale laxankana waxaa inta ka xusaaya Cali Shaacir iskale Nairobi ila joogo maanta aan weli arko waa salaamaya laxamiistaha weyn kabaniistaha ayaa iskale marka heesaas dhoof jacayl taariikhda intaasaan ka haya taariikhdeeda waqtigaas soo gashay gabadhaas ayaana ii dhiibtay heestan kale ee hayga roorina hayga roorin waxa iskala abwaankeyga Cabdullaahi Gurey waxay ku xigtaa heesahayga heesta labaad aan yeesho waaye de waaba heesihii aad waxaan ku dhigay ku tagtay gabadhan iyo heesta Ethiopian ka kansaday heestaas waa heesihii la igu soo oo waqtiga aan la igu soo geliyay
marka heesaas waa heesii diyaarsanaa ee xaawakiin markii fanki ay soo gashay abwaankayga marka ugu horeysay waxaan ka codsaday haddii aan fan galaan erag waxaan rabaa inaan ku galo heesa aan leh waa heesii ugu horeeyay oo ii dhiibay waaba waxaan ku samada iyo cirka u gashay dad koobi la soo carari lahayd bal xasuusta dib u celiyo heestii aan hayga roonay aan ku rabaa bal yar noogu dhufo waxaan raadiyeen raacda ugu jira roona waa inan reer ku noqdo rasuuladega rubadiya niyada raadanba ayaad ku reebtayo ruuxdu ka heshaye anu adi ku raba hayga roorin caashaqa runta ha ka roorin kalgacayl rasmi ha ka roorin raaxada danta ha ka roorin oo ruux ku jecel ha iska reebin arlo waa quusatay marka jacaylku helo heesaha ma xasuusataa hadda inaan iloobaan buu malaya ayagii والله markay wixii kugu farabataan ma aragtay heesaha macna qaar baaba irida kon yaa heesaaba leedahay maaniga goorma ahayd bal kembal ka bacdi waxaan ku dhahay marka fanka wax badan ku dhax jirto oo waxa intaad xafid hada erayo badan oo xafidnay oo meel isaga jira jirto aan wali soo bixin heeska iyadana waxay jirtaa xaaway leedahay jawi oo heestaas waxaan ku iri arlaba qabsatay oo adduunyada quusatay oo magaalada waxaan ku iri markay isku kacday markay kala fadhiisanaysaba heesta jawi baa u shidan jawi iyadana waxa la abaan abshir maalin la dhahayo macallin laxanka waxa saaray aniga xawkiina adiga laftarkaaga aniga saaray hees waxa heesaha kale uga qiimo badan tahay adaa u laba fadhiistay wallahi heesaha aniga aan adiga imaadan weydiinne waxaan u malaysaa heesaha aniga aan leeyahay oo aniga laxamada saartay dadka sida ay dhahaan ama ay markaas fanaaniin kale ama markaas ay dhahaan xawkiin laxamadaada ku fiicantay dhahaan kuwa kale laxamada kale intood maybe marka qof walba waxa ogaataa laxanka oo saar macnaha de waa isagii baa moogtay wixii isla qaadiyo codkii uu dareemay isugu dhacaysa daas way marka ma fahantis inay weydiisan waa wax muhiim waana mahadsantahay heestaas jawiyaal lahaa music waxa tuma istaadka weyn sheego bishaar ayaa tumay marka heesta anigu waxaan jeclay markay afarta marayso kow markay ka bilaabato oo laba sii socoto oo saddex soo socdo afar dhe markaa tilaahid baaba arlaba waxaan ku wari dhaqaaqdaa bal heesta in ku dhufo gabdho badan oo jecel adiga kaliya ma aha gabdhaha qaarka dadka dagaalka markaas u diyaarka way anigu hadda anaa iska jecel hadda anigu dagaal shaqo kuma leeyahay marka jawi kala galay afar waay marka ma fahamta aniga heesta waa iska kasoo gashay ahaantii laakiin marka fiiriso waa hees meelo badan dadka bulshada dhinacyo badan ka taabahayso waana hees macaan adigana waa baad ku mahadsan yahay abwaanka ku siiyay aad u mahadsantahay xaaway kulli heesaha ugu dib waa badaas waxaan ku iri magacan ragga keebaad ugu jeceshahay magaca reer maxaa nimanka magacyadooda ugu jeceshahay cabdi magaca cabdi ugu jeceshahay waa tay aad u mahadsantahay عبد هبلو marka cabdi la sii raacay cabdi kaliya moogtay waa dambi qof cabdi kaliya loo yeeray cabdi kaliya ma ahan magaca cabdi sii raacay marka wax inuu raaco adoon aan jecelahay magaca haya magarasa in cabdi risaaq cabdi raxmaan cabdi casiis macna marka la sii raaciyo cabdi xakiin cabdi marka ku dhaho magaca sii raacan rabana sii ogaado ma kala qaad cabdi xakiin عبد المجيد عبد ولي عبد هبلو مركوا بدني أنا عبدي ونباكو ده مركا مقع عبدي ونهالكاس إنك هالكاس ونباك جعلها مركا عبدي ونهيسراع عن عوض هذا ما صنت هاي ولكن عبدي الدهاي ما فهمت ها إسقى قاضني إسقى ناس ما يا الله ونحرسته أنت لكن عبدي ونمقعاس عبدي هلا ماشي سانكتش على هذا ما شاء الله إلهي ونحرس ولا الله واتهاي طبعا هيصها جوافر بدينهين تاريخ هذا أنا دي بقول نقول منه أو أنتي وحن كوري إنك سؤال إيش شيء جن حماش أدق هذه نفس الكاج إكلاني هرتا عاونا أن بعد أفكار يقول لك ترتمكت ناس كافة جيان ربا هذه حنت هذا مكته
ma yaanu guday maanaaba waxaan ku halkan baan iska fadhiyaaye adi xantaada marwo reer weyn baan ahay anigu an xanteedu waa ogaay adiga xantaada maxaa ogaamaysa marwo reer weyn baan ahay yaa marwo reer weyn xantaada waa ogtahay isbaandhaysa soo saar horta marka ugu horeysa bes waa soo shiili doonaa dib baan iska soo shiili doonaa maasaas ma leedahay dib baan iska soo shiilaya sababta ma ogi marka anigu de waxaan ahay ma garanaysaa halkan un baan dadkaas un baan u warramaa uun imika waxay qof walba waxbaa lagu xantaa aniga hadda xaawakiin lagu bay go-aantaa lagu xama jiray waa roodi wadiga caawa cadeeyo mar dambe inaan la isqabsan dabeetana marka aniga yani wax gaar oo ilaa haddaan ku aamusiyaan ku idhaahdo aamus waxa la odhanayaa balaayo dhan baa dhacayse hadda hay aamusin aan hadli waxa meesha loo soo fariistan loo hadlo waa mugta aad iyo aad in la hadlaa meesha loo yimid aad iyo aad in la aamuso loo ma imaan asal baa tahay marka de xantaada ii sheeg wallahi bal mad ii yara sheegtid xantaada ogta reer Ingiriis weeye dadka kale shaqo ku malayaan waa reer Ingiriis uun reer Ingiriis yaa waa reer UK may meel ma adduunka oo dhan waa taa la jabay waxaan su'aal haddaan ku weydiiyo si saan miiga jawaabaysaa si fiican waliba adiga iyo idle maalin walba waxaa dad oo horta marka ugu horeysa aad horta friends u ah haddana dadku waxay idinku xantaan inaad laba qof oo nolosha qaybsada inaad tihiin maxaa arrinkaas ka jiro oo inankaas de waa iska fanaan ma garanaysaa iyo de adigana fanaan baa tahay ma garanaysaa fanaaniinta Soomaaliyeed ee aan halkaa isku wareysano aniga waa is ogaa inaan fanaanadahay inankaasaan kaa wareysay isagana yani sidaa uuna aan ku wareysanayo uun baan u wareystaayo halkaas laakiin dadka reer Ingiriis ugu badnaadeen iyagu uun baa wax ku isugu riday soo ogaata adiga inay reer Ingiriis kaliya ku haystaan qof kale bay mu weydiin mise ana iga soo ana kaas qof kale bay mu weydiin ka gudub waa dhawaatay waa ka qaadanay dadka bulshada waxaan u sheegaynaa maanta kadib inay deeilo walaalka yahay oo waxa leeyahay dadkii ii soo socday iyo waxaan ku ummadii ii soo socotayba masiibada gaabo masiibadaas ku haysato koleyba marka waa aniga naftirkeyga xabeen hore aan isku dhakanay waa kala foqna laakiin hadda marka idinkana sidaas oo kale inta waa tahay aad u mahadsan tahay aan heesihii dib ugu soo noqono hees waxaan soo qabanay leeyahay aroos inaad inan aroos halka noo joogtaa fiicnaan lahayd oo inanta aad u qaadid aroos sax heestan bilcidii sameysay iyo eriyadeedii iyo heestan abwaan Soomaaliyeed ayaa sameeyay oo markaas gabadhiisa u sameeyay macnaha gabadhii xaaskiisa u sameeyay uu sameeyay gabadh uu asaga dhalay okay ayaa wuxuu taageeray abwaan ku dhihinoo qaldoomaha imaam hadalku ma jiray aabba Soomaaliyeed ayaa wuxuu gabadhiisa oo la guursanayo farxad awgeed ayuu heestu ii keenay heesta markii ii keenay heestii waan isla eegnay aniga iyo dad badan in badan ayaa heesta marka aan qaabeynteeda iyo sidii aan markaas abwaan ma ahayn de heestii waa u toosinay waan hagaajinay nacnaa u saaray aabahaas ayaa iskale gabadhaasna Faa'iisa lahaa oo markaas loo qaaday oo reer UK leeyihiin aabahaas ayaana erayada markaas loo hagaajiyo oo loo sameeyo inta badan dabka codkana waa adiga waa tahay mar kale heesta aroos iyo xawkiin daawasho wanaagsan
kala gaso واسكو والله هي شدب بقاضي يا أسمي أبغى نمو هنا أنت سوم بقصة قيراك كانت هويدا إنا gabadhan hooyadeed al usmay aabaha waxa u sameeyna hooyada ina gabadheedu kula hadasho okay marka qaafiyada abana iskama aheeno wixii anaga barna jijin u sameeyna heestina aabaha Soomaaliyeed oo qeyrada gabadhiisa ka keentay inuu miro sameeyo ayaa iskale Abdullaahi in la dhahaano u maleynaa wixii hilmaamna hadalku ma jirto gabadha horta Faaiisa la dhahay arasku sameeyo long time ahead ما شاء الله أطبق ما صنتهاي إن كل قيبه دبّ برامج كانوا يسوق قاعدني كل عاود دتين هالكن صرف دنا أون راهنا محيتي ورئيسي وحن كلوا مدامانيو مركان نقولنا دنا عفنكا أتقول ما هيدا أقول هذا هاي فنكا مسي وات صوت بحكي شيء يعني كفاميلي هان ما فاميلي كي يعني فنان ولكن ويل ولكن أو فاميلي هان نوجد واجرتا سكودونها أو ولكن أها لكن أنا فاميل أهان أو هوسة ما جرت لكن ميت كوري هذا قدر سنك بانكشن سدا أو مركز هيب أهان أو سوجود وين دت أو مركز يعني هكا باكو جدو أسا يجودو عيد كلا جودو ما جرت فاميل كنا عيد هست ما جرت أنا مركا عادي جاي سيدك كوجاتينات فنانة دي فنانة صعوتي دقائقين قنيسيد ده إجل ميسو جد مركا ورين قيسي لو دي سنة هرت تاي lagama wada hadli karo la dhahay wixii hadda soo socdo aan ka wada hadalno wixii taga lagama hadli karo taas waad lagama hadlaan because wixii Ilaahay qoray way tagayaan caadi idna ma gaarayso marka magacaas tagay inuu magac sharaf noqdo aan muhiimadiisa tahay markii aad fanaanad noqotay reerkiina ku arkay adigoo saaheesi oo kala dhigaya heesiisa oo kala shubaya maxaad maxay yani maxaad caqabado reerkii kala kulantay ilaa maradani fanaaniin ahayno aanay shaqo ku lahayn oo inantoodii u heesaysa arkeenon wallahi caqabado waa iska arkaysa because waalidkii walaalaha markaas ma jeclaanayaan oo fanka waa taqaanaa qof oo markaas ku soo baxday oo ku soo dhiiratay caqabado badan ay kala kulmaysaa runtii marka waan saxday waxyaabo badan oo aan familka walaalo aan kala kulmay oo dadkii eheladii aan kala kulmay oo waana waa jirta laakiin personal attack oo si xoog qof igu soo qaado ma jirto waa leeyga waana jira laakiin waxaan balan qaaday inaan magacaas aanan u noqon doono haduu Ilaahay yiraahdo magac aan sumcad daro u keeno familkeyga marka barnaamijkan ka qaadan oo ku dadaalay inaan adkeeyo oo magacaas aan adkeeyo waatahay fanaaniintii hore fanaaniintan dambe de waa iskaloodkaadiyo fanaaniintii hore iyo jeclaan jirtay la qofku markuu cidun buu ku deeradayday aniga horta fanaaniinteedii Soomaaliyeed oo dhamaan wixii oo maamooyinka hore iyo dadkii hore oo dhan waa jecelahay waa hidaheena waa dadka aan ka soo gaarnay oo ayaga fanka nooga horeeyay waan ku dayanay laakiin waxaan aad u jeclaa aniga shakhsi ahaan waan aad u jeclaa qadar daahir iga iyo xabi xasato waxaan jeclaa marka heesuhu dariiqa qaad isoo saad cala waa jeclaa hiban waro sidoo kale waa jeclaa wiilashan waxaan jeclaa xasan samatar waa jeclaa maxamed salmaan waa jeclahay عمر نور عبد الله جماعة إنك ويلك فنان كقاعدنا وجعلاي دad badan jeclaay دمية واصحة مجرى فنان si khaas ah aad u jeclado heesiisa aad oran jirtay mar walba ku dhadhabi jirto qaadi jirtay haa aniga qadran jeclaa jira ku dhadhabi jira heesiida igu beer jacaylo kalgacayl ku baahiyo hadalada baroorti bogaha damqinaya igu baabayn maqalay baxanaanaadu siday tahay miyaad weli bastaa tahay allahayo kusama bixiye cabdo bari samadkii marna sheeka baralay
kaftan la isla beegsado ma baraarugtayo boholyo ma oyda heesaasdan jeclaan jira inkastoo aan isdaba dhaafiyaan ogahay hadda may waaba dee waxaan ku uri heesteer waaba hees yaro qiiro leh horta waxaan ku uri markaad xaawaay wejigaaga marka saa loo daalaco saa loo eego qacda horeba waxa qabow baa ku soo yar maraya dadka qalbiga yar jilicsan baa tay mugtahay waa iska beer jilcana runta wallahi waxaan oo dadaraysan dhan ma arki karin waa iska beer jilcan tahay dhinaca jacaylka dadka markuu jacaylka soo maro dee lama rabo jacayl yaro meelahan iska taagtaagan oo xogaa telefoon iyo maala yacni mugtahay kaas inagu shaqo kuma nihin jacayl waxaa jira weyn oo intuu ku biyo dhigo waxaan ku meelo adag kula mara oo dhibaato badan iyo dulqaad badan iyo wax badan iyo samiro badan iyo inkaaro badan ka soo maraan sax marka kaas qofka uu ku dhacaan qofna waxba la yiraahdo waa tuu dhintay oo leeyahay cilmi boodhari iyo inagu meynaan taagnayna waa la aasay sax inankii kale qays iyo leyle iyo dad badan oo taariikh badan oo Soomaaliya ayaa soo maray marka kaas markaynu ka hadlayno horta adigu inuu jiro ma aaminsan tahay mise adigu maxaad ka aaminsan tahay jacaylka waa jira wallahi runtii waa jira laakiin I don't know midabkiisa adi inuu jiro ma ogtaa horta manolia masoo dhinta damiya baan anigu weli waaba sugayay يعني ما دام عدو أتفنانة تهاي وهيصة بدن أو عابن موذا يمرك قاركود هم بابن نقول موذا بدي. إن رنتي هرت جعل وجرا لكن ما لما هذا موذا دتك حد رهان ولما هذا جعلك قف كي أو شرع جعل بكاغ لما هذا ما هني. قف كلا واسك ديار. ديار واسك. هوشيس واس هاي قف كاسي وصفق يا هوشيس واسعطا اسواس كبطا marka dadka dhahay jaceelkii u horay waa intaas ma aaminsani ma fahanteen marka jaceelka qofkaas hadba qofka sidoo kale keensada waa oo adiga nafsadaada u raali geliyo qofka adiga ku raali geliyo oo naftaada qanciyo oo noloshaada u roon adna qalbiga de uu soo dabcaya meeshiisoo kamiisaya hadaad ka dhaarata shalay xataa dib dambe ma arki kara xataa dad tiri kii aad dhex gasho adoo dabaalanaya aragta leeyo marka macnaha waa qofkii ku soo dhaweeyay ee ku magarasay naxariista ka warmid baa naxariista isaga waabana yaraatay naxariis midaan lahayn jaceelba iska daayay ma jixin yar xataa u qaaday taas ka sii soconaysa ka tagaysa qofkan naxariis lahayn adiga qofan naxariis lahayn ma la joogi kartaa ما والله ويا ضغطها لكن شعيل كون حريص ما يقام حولها أركتي قف قلنا حريصتم بأسوأ لكن قف نور إلهي حي ونفقلي أو بشر أو بني آدم إسكداف وأقلي بصر له حوله قف أخرى يقانون لكن مؤكتها وحن ليري إن كستو أنا وأنا ده أركينو أنا ده إيمكا لكن ضد بدل مركان ورثة إذا وحلي وضبير هالمركو مرتا حدو بلان حريسة دق حبان كوري دق حدون تاكمتك سمام قليل قار دق حبان أركي ضد صاص أضل فديا أو كمير لا أو ده هاي أولي ورا أنا يعني سليه ولي وقتك متين ضد كاس وعنده لها أن قلبك هكذا قنمي عبد عري هستيسي iyo تفاح درجو هكذا قلبي عيد مid kale inta raadso inta qof hadaad weyso oo xumaato qofka kale intoodaas wanaagsanaan karto mustaqbalkaaga dhan habaabiin aamin daranayo kugu dhicin marka adiga idageyso ma hadiiba jacaylku helo oo jacaylkii ka xumaado yaani waa sida aan dad badan de aynu ka soo ilaa bulsho badan baan moogtay anaga aan kulanayo aad baa wadaagtay يعني waxay ku leeyihiin ba warwar inkaar stress qaylo charrac bilaayo dhan halkaas ay fadhida hadhow ma waa laga wada hadli karaa waxa markaa ka bigsatido nolol kala gashid sidaad heestaadi de jawi kala raadiya ina jawi kala gashid hadaad aragto meeshan in hadda waxa laga yaabaa dad badan in daawanay inay arrimahaas ku dhaceen oo laftarka kelmada aad tilaahida ay ku yiri bogsadaan hawa run qofka hadii ka halaabo kan hadoo ka halaabo mid ba hagaagay shanta farood isku hal ma ahan
intaada waqtigii aad dhigtay macnaha de ma lumino qofkii mayda muu ka lumine macnaha haduu ka yare maxay aa is qabataan oo isfahmi weydaan macnaha soo saama ka lumo maxal la jacaylka sidiisaba qofka jeclaato hadii ahliisu ka lumide oo ka taga qofka ka tagana qofka kula garawaya waa jacaylka qof naxariis kaaga taga ma qofka ileen waa aragtay qofka marka jecesha waa xaraarugaysa sida qof sakaraad camal waay malba meel ay ku dhacaysaa ii soo toogo waa leela jiriyo kano soo baay soo qabtaa soo wada baxay de qofka hal mar waa ku diiday iska baxmay iska tagay qof jecelahay waa taqaanaa cudur waa jacaylka xanuun waay oo korkaaga adigu waa inaad dhowr qoosna waa inay qofku meel ay ku quusatay gaartay ha inta hore iska wado quusatay waxay soo socotaba markay de wax u naxariisanay weyso ama qofka jiibinay ee weyso ama lagu kortumanayo xanuunkii dartiis la jirtay ama la daala dhacda markaas kadib waxa laga yaabaa inay markaas iska aamusto de inta hore way wadaysaa laakiin inta hadli karto inta xabaal gelin adiga marna ma ku sigay xataa yuuba kugu dhicine ma ku soo agmaray والله horta qof aan jacayl ku dhicin ma jirto adduunyada qof kasta jacayl ku dhacaya qof nolol kasta oo soo maro nolol kasta oo taala hada maanta soo marin beriyo soo mara jacaylkan la yaabanaa jira magta waxaan jin maxay jacaylka muxuu yahay sawir miya afana ilaahu hay tusin gabdho walaalahay waxay dhijiraan ilaahay ha ku tuso markay ka sheekeeyaan waa ku lablabo jira warkooda kibiriyo ee dareemayaan ka gaara dadkii ugu darnaa adduunyada ma aragtay waa taas qabanay marka waa laga ma sheekeeyaan arinta waxa leedahay nagu celin taas meel bay dadka ka damqinaysaa halkaan hada dadkana fiirsanay inay baroortaan maarta may wallahi waa arrin marka nagada kama bixi shalay wixii dhacay maanta ku ilo وأطاعت بأمهات صنطاي حواي كل ده برامج كي قيبيه قدام بيه هستي أم برامج كي جت تجي لهنا يانا وين وصل لود هاي الشعب بدن بقى إن طاونا يعوا إن أو أن هالكن ده تيفي أرتي إني برامج كي إجلن شو طبعا مرتي وقلت هاي خذت كتلفون ضاع يانا صوفر لها لكن وحن كتشعر كدور بدي إني هي صاحب برورتها اللي حاول هذا كده ويمقلي يعني لكن هي صح إن كهقبترنا قيبيه قدام بيه أيام برامج كسوق يعني dad badan baa horta ku daawanaya bal asxaabtan badan ee ku xidhan barnaamijka English Show iyo TV-ga RTN iyo asxaabtaadi maxaad ku oran lahayd shacabka dhamaan waa salaamo asxaabta sidoo dhan yihiin fans and friends and family horta inta taqaano ama inta bahda RTN ku xidhan iyo English Show waa salaamo yihiin aawna ujeedaan halkan bay naga keentay ama naga siisay داني إيه هلاك عاو محا هذا السؤال هذا كأب ويدين جرت ما ويدين الساعة ما كاويدين وحن نسمع مدابة فنان اللي تشني هالكن كوفر دينه وحاصل نواقع شرعي لأنه وايه مرك وحاكو ده الواقع سؤال السلامة يا دمنتين قلبي قاعد يتشعل لما غير نيروبي قف مياد تشرين عاد سيجار وسلامي سيدو سلامة يا قف ما سيجار قف وسلامي سيدو لما سيجار وسلامة يا أنتي برنامج كيني سو ودي أنت سوى فارس كأنه واحد يقول قف هذا قف مياد سلامين أنا حتى هدي اللي يوريسن الله الله يوريسن الله اللي يقول هاي اللي يقول لنا هاي السلام الهاي قف مساء السبود اللي هي أو مسك سقصص إلى هم حتى أنا ده وإضافة يسوى بوبسين صارت السك وصوت تابح إيجا هل يجملة بو ده قف كلي يوم محرني إن عروتي إذا جوكتو هو إذا جوكتو ولا له هي جوكان أصحابتي إذا لمان ما سوكو بكر أنت مقال كي تقان لما هرتو السلامة ولا له هي أنت سومالي جرتي أنت إن إنجليزي جرتو والسلامة يا لما أنت ما كلا قاعدة كرئيو سعودي قبل جرتو ولا شيء لول أحمد هلول كل والسلامة فانس كانوا كوسي دبقة فانس كون السلامة يا دمان قبل قديش اسمه السلام هو إذا السلامة ولا له دمان مير كما تجين أصحابتي إذا مير كما تجين all one love أنت واسلا جرام وحنا هرت أن مشان سيجار وسلامة يا أبوان كيجا حسين مدوبي وعاو هذا هسي استوديو كجرا كحما هاي ودب لك كسب بحدانه هدو إلهي يرهدو يا عبد الله 4 أستاذ كوين مسيشن كين وين الصوماليات واتقانا دمانتي نبو
وإذن سلام يا قامي وأنا قاسف يعني وإذن سلام يا لبدينا يدمان أبوانين تيدا أنت هيسها إيه وذا ديبتي لحين استيالك استاد معلمين تيدا أما وإذن سلام يا maxaa kale intooda iweydiin may waa sax intaasna inta anaguna waan kula saarnay inta allaale inta hadashay iyo inta ina daawanaysa anagana halkan amrtay laakiin su'aashu waad ka bad waxaan ku qof khaas ku amiyaan jirno aad halka salaamaysa mise waa lagu kala guuray meesha xun jiraan meesha madagal baa ka jira Allah iglaba adiga ya salaamaysi aniga hadda dilay soo qofan salaamay laakiin hadda ana ku wareysanaye gaari jirin واجران dad badan oo gooni u salaamayo Cabdi Fataax kamid ah Cabdi Rasaaq kamid ah waxa kamid ah dadkaas oo dhulca Cabdi Qaadir kamid ah dhamaantood waa wax waaye si gaar ah u salaamaya walaalkii Cabdi Qaadir jacaylkii meedan salaamin xawaay muxuu ahaay ilaaha u sheegin Holland salaantaas waxa ii faad dadkaas waxa waa si gaar ah ii qabsadaa maalin walba horta jacaylkeygana waa salaamaya تعاون waxaan tahay walaali iyo faanis iyo fanaan iyo waxa salaamaysa mugtay waxa rabay inaad la soo boodin maanta isma haysanayna waa salaamay waaya waata aad maadsan tahay wax su'aal oo aan ku weydiinayo caawadaas horta ma jirto waxa su'aasha iga iloodo wixii amaanta oo dhan aan la yaabanay ilmihii tareenka ku tagay dib loo arkin madaba wareysto iglane maxay yaabki adduunka aniga marka inta imaad soo waxaan la yaabay aan kugu iri marka Kenya aati maxaa kugu yaabadnaa ma dhihin maxaa kugu yaabadnaa ideh maxaa aragtaa itin maxaad arag bal waa heeyay maxaad aragtay ايش waxay maxaa kugu yaabadnaa waxay ahayd markaan gabar Soomaaliyeed guri isugu nimid markaas aan iri eewul maalaysa salaamo sheeko saan wadna waxay tiri caruurteedii baa tareen la tag yaa iri iigu soo si u tag waxay tiri tareen baa caruurteedii intaan saaray caruurteedii tareen saaray ayaa ii jooji dhahay tiri markuu dhaqaaqay ilaa shumaba istaaga tareenka tareenka shumaba waxa la tareen tagay sidoo u tagay tareen tagay ma istaago waa soo u tagay tareenkii markii ilmihii ciyaalkina aaban ku waasha markaa taageenay tiri waxa gee taageenay meesha geeyay iyo halkaas ay jiraan tiri macnaha ilaa hadda caruurtii lama hayo marka macnaheeda oo caruurtii tareenka la saaray ee ii jooji tareenkii inta kari weyso ay ka tagay gaari ma ka daba qaadan oo baawrka ma daba qaadan oo tareenka lama wixii tareenka lama socono asaa laasti ahay ilmihina ku deeyeen tareenkii ku maqan yihiin ilaa hadda meel jooga ka badneed oo intaan soo jooga adduunyo ama qalwa marka ilmahaas tareenkii ku maqan yihiin waa sheekadii kugu yaabada keenta waa tahay xawkiin aad baa u mahadsantahay aad baa ugu faraxsanahay caawa inaan halka soo wada fadhiisano oo aan dad badan oo aadna faaniskaaga ay halkan barnaamijka England Show iyo TV-ga RTN dabcan ay ka daawadaan oo halkan anigana dee وجه عصب marka waxaan ku leeyahay sidoo kalena xaawa waxay dhigi doontaa bay ayaan halkan ugu dhigi doonaa oo showban aad dhigi doontaa dambe showgii hore way dhigtay showbay halkan u tii hab New York nagala qayb gashay dabcan iminkana waxay dhigi doontaa bay baan u dhigi doonaa taasna waa isla socon doonaa laakiin video dambe u duubayna waa tahay heesti aan barnaamijka kaga tagi lahaa waxa la yiraahdaa hanad habqab waxa la dhahaa handab waxba lagu handaabo meel ma jirto ku handaab meel baa inta ku dhijisa uga tagtay halkii buu ku joogaa may loogama tagin waa lagu celishay meeshaas uu ku jiraa waa lagu hayaa dadka hadda ma qabsoomaan keet waxa lagu ilaalsado ما شاء الله أدبوا ما هتنتهي واتهاي داود يلا برامج كي إغلى شو عوا أساسا إن واحد إسكلا أبانكي أبان دافيدو لحن كي إمره بأسا إسكلا ميوزيك واحد تومي اسمه جوستو ده أنا قاعدة فرسمة مصطفى كرام واتهاي داود يلا هستاس هنداب aan barnaamijka u soo gabagabeynayno ayaan kaga tagaynaa barnaamijka sadawanayseen baa waxa marti igu ahayd fanaanadana Xawakin oo safar inagu joogta dalkan Kenya magaalada Nairobi barnaamijka intaynu kulmayno annaga iyadaba waxaan kaga tagaynaa heesta hantaab awsho next
halkani waa RTN.